السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan kariyo qudaartan oo ujeedaan iyo chickenkan aan rabaa inaan isku dhex kariyo. Marka ma isku dhex daray laakiin insha Allah saan u karinaan idin tusaa. Meesha waxaa iigu jiro kismaayo xawaaji iyo kismaayo masala. Waxa waa xawaajiyadeedii ani aan samaystay oo gabdhaha badankoodana maasha Allah iga gateen. Meeshaas waxaa ii yaala maraq maaji. Chickenka waa kana digaag yar ah waaye ma waaweyno maasha Allah. waxaan choose gareeyay yani safarka inaan sameeyo ayagoo yar cusbaa meeshaan ii yaalo. marka cusbada adiga aad rabtid oo ku shuban kartaa cusbadana ama maraq maaji labadaba isticmaali kartaa. marka meeshaan waxaa iigu jiro waa plain yogurt waa aragtaan badanaa waa isticmaalaa meel badanaa ku darsadaa. marka qiyaasta waxa waa adeeg ugu xiran tahay hadaarta 2 qaando hadaarta 4 qaando inta adiga rabtid aad ku shuban kartaa. marka anigana inta aan rabo hadda aan ku shubanaya. waxa wuxuu kaalmeeyaa hilbaha marka wax karinaysto oo kale uu jijibiyaa yani adeeg kaaga dhigayo jileec oo ka dhigaa kasir. meesha waxa iigu jiro waxa waa maraq maaji waaye. maraq maajiga aad aan u isticmaalaa waa aragteena u maleynaa badanaa favorite keeg waaye asaa u badnahay. meesha waxa iigu jiro kismaayo masala. kismaayo masala waxa ugu darsanayaa waxyaalihii loogu talagalay chickenka la mariyo kulli meeshaan ku wada jiro. يعني مو بaahnid inaa 20 dhalo meesha soo saftid kan ku shub waxaas dhan aaba aan diidaybo. marka labadan shay la isticmaalay maadaama wax allaala waxaan rabo oo kismaayo masala iyo kismaayo xawaaji ay ku wada jiraan labada xawaaji bis aan isticmaalaya. meeshan waxa iigu jiro waxa way food color waa zacfaraanka biyaha. hadaa qabin zacfaraanka caadiga waa isticmaali kartaa hadii aad rabtid chickenka inaa colorka ka bedeshid oo kale. cusbadan qiyaastaadii adiga qiyaasanaysid aan hore wax badan inaan ku shubo just qiyaas wax yar aan ku shubtay. meeshan waxa iigu jiro waxa waaye qal waaye. marka kii hore waa iga dhamaaday mid kale cuseeba hadda aan soo baxsaday aan furtay. marka meel yar leen ka furaa ma rabo inaan kulli wada furo wax yar leen rabo inaan isticmaalo. marka walaalihii waa ujeedin waxaan dhan hadda isku wada dardaray waa isku wada qasqasaa. haddii yani aad rabtid waxaa sameyn kartaa oo kale beri camal hadaa qada rabtid aa ugu soo yani dalagashay aa u diyaarisay waa qaadaysaa habeenkii qasaysaa farindeerka gashan kartaa dhib ma lahan. meeshan waxaa iigu jiro toon waaye oo shiidan. haddii aad rabtid waa hadaad rabina toonta caadiga qaadaysaa waa fiiqaysaa waa samaysanaysaa ku shubaysaa. marka gloves isticmaalaya marib gacanta food colorka inuu iiga halaabo colorka zacfaraankan ka wada marabay inuu gacmahayga guduud uu ka dhiga ahaan gloveskiga aan gashtay waxaan dhahay gacmaha uu ka halaabin. marka walaalahayga waxaan hadda ujeedana aan isku dardaraysaa idin sheegay xale oo kala qasi kartiin maanta daaqado u rabtiin camal waa la soo bixinaa bas birta la saaraysaa foornada gashanaysaa. laakiin maadaama chickenka uu yar yahay waxaan dhahay inaa habeenka qaso yani muhiim ma ahan markaan soo kaco xitaa waa qasan karaa. marka qadaan rabaa inaan ka sameysto aan hadda qadadeedaan diyaarsanaya. chickenka waa kana waa sameeyay. chickenkan waxaa ku cuni kartaan sida bariiska oo kale sabaayad hadaa sameysanaysid muufo oo kale aa lagu cuni karaa chickenka iyo qudaartaas aan rabo inaan sameeyo maasha Allah. marka wax sheega hadii adiga yani si fiican u sameysid wixii waxa waa dhadhan ku lahaanaya waxa waa macaan badnaana raashinkaagi. laakiin wixii hadda isku wada dirdirtid hal mar foornada ku tuurtid waxa waa karaa bis laakiin si fiican ma fiicnaana. meeshan hadda waxaan gogoosanayaa baradhada waaye anaa boobsiyay maxaa waqti dheer oo igu qaadan hadii kale maanta dhan waxa waayo waxa jarjarkaasan diidaya waqtigaas dheer inuu yani uu naga qaato wixii waxaan la dhaqsinaa idin soo dedejiyo walaalahayga. marka baradhadaasaan jarjaray kaaroodka waa kana hadaa rabtid waa jarjaraysaa hadii kale waa iska dhaafaysaa. waxaan kale aan ku shubanayaa hadda barbarooniyada yaryariiska ahaa oo kalarada ahaayeen ayaga hadii aad kan qabin laaziman ma ahan barbarooniga rabtid aad ku shuban kartaa ma ahan yani inaa kuwan kalarada aa heshid. marka qudaartan iyo waxa dhan aan isku dardarayo favorite keeg waa qudaarta horta sideeda waa fiican tahay caafimaad waaye. marka wax cunaysid marka hadda bariis qaleel iyo chicken qaleel ma la isku cuni karo waxa u fiican yani wax yar oo maraq yar oo qurux badan mis macaan badan inaa ku cuntid. marka anigana waxa waaye maadaama chickenka aan karinayo waxaan dhahay maanta waxaan karinaa
maraqna u samaysana oo baradhe oo macaan badan oo khudaar oo isku jirjiro oo simple ah. marka sida la isku karinayo aan idin sheer gareenaya haddii uu ilaahay nacam dhaho oo idinkana aad rabtaan inaad tijaabisaan sidii yacni jid dheer u marin aan si fudud idinkugu tusaya. marka waxaan diidaa intaina sufriya saartaan maraq karisaan chickenkii qaadaan hoos gelisaan aan diidaya laba dab yacni isku daartaan. marka laazima ma aha inta khudaar ani aan ku daray inaad ku dartid waxaan dhan haddaad cuneynin oo rabin laaziman ma ahan wixii adi markaas aad rabtid inaad cuntid aad samaysan kartaa aad isku dardari kartaa. haddii yacni aad rabtidna inta hadda ani aan sameeyo aad samaysan kartaa. marka choice aad leedahay yahay shiishiid haddaa rabtid oo ku darsan kartaa haddaa rabtidna waa iska dhaafaysaa laaziman ma ahan. ani markan yahay shiishiid ma rabin waxaa leen rabay yaanyadaas dhan iyo qudaartan bis inay isku jirto xitaa xawaaji badan ma rabin. xawaajigeyga wuxuu noqonaa insha Allah haddaa arkeysiin wixii markaas aan ugu talagalay. kabsar waaye kulli ma ku wada shubaayay wax yar leen ku shubanaa ma rabi kabsar badan inuu ii lahaado maadaama maraq leh aan ka rabo oo yacni aan wax ku cuni karo aan ka wadaa. dallacna ma iiga baahno inaan dallaco oon dab galo oo yacni saliid aan saara ma iiga baahno wixii dhan hadda isku wada dardaraya waa ujeedaan. cusbo yaraan ku darsanaa haddii aad rabtid waaye haddii kalena waxaa ku darsan kartaa maraq maajiga. waxaa meeshan iigu jiro waxa waaye huruud waaye huruudkaasna wax kale ma ugu shubanayo waxaa ugu shubanaya kalarka yellow inuu iiga dhigo bataatiga iyo qudaartaas haddaan isku daray. meeshaas waxaa iigu jiro olive oil haddii aad rabtid waa ku shuban kartaa haddii kalena waxaa isticmaalaysaa saliidda sisinta. waxaan kala hadda rabaa inaan isku qaso wixii aan ku dardaray oo qudaartii iyo huruudkii iyo saliidii iyo cusbadii wixii inaan rabaa inaan yacni aan si fiican aan isku gaarsiiyo inta aan foornada gelin horta. marka walaalahayga saa idin sheegay easy waaye wax saas weyn ma ahan. shaqadan waxa waaye ma rabi inaan idinkugu dheereeyo oo laba jeer aan idin tuso sufriya intii ii saaran saan ku idin sheegay iyo chicken inaan hoos geliyo chickenkaasaba diidaya kaligiis inuu hoos ku karo. marka saa ani aan u samaysanayo aan idin sheer gareenayo walaalahayga saa idinkana aad u samaysaan. meeshan waxaan gacanta ugu jira waxa waaye filfil haddii aad rabto ku shubanaysaa haddaad rabina laaziman ma ahan. horta xawaajida ani aan isticmaalayo laaziman maaha idinkan inaa isticmaashaan haddii aa idinka rabin wixii markaas idinka rabtaan aa ku darsanaysiin aa ku darsan kartaan. maasha Allah waana idin macaanaana. marka birtaan aan isticmaalaya birtaan aan chickenka soo saaray hal xaba liin aan qaaday 3 xaba islees yacni khafiifa u gooy aan dusha ka saaray foornadaan gelinaa. marka foornada markaan geliyo saacad ma ii go'no inta minute oo ku jiro ma ii go'no ilaa aan ka arko chickenka inuu gaduutay laakiin dabkeyga waxaan geysanaa 350 ma ka badinayo. geedka aan meesha dhigtay waxaa uu dhigtay marabid birtaan dabka kasoo bixinayo inuu iga gubo. chickenkii waa kana diyaar u soo noqday korkas noocaas oo kasoo noqday waa ujeedaan. marka insha Allah hadda waxaan idin tusaa bataatigii iyo qudaartii oo hoos ku jireen. marka waxaa choice u leedahay inaad qudaartaas iyo waxaas dhan inaa saliid yacni oo saliid kor ku dubtid choice u leedahay ama inaa hoos gelisid. marka maadaama ani hoos aan geliyay chickenkana kalarkiisa uu saan soo noqday marka hadda waxaan idin tusaa qudaartii iyo waxaan idin tusaa saan aan chickenkii aan u qurxin lahaa insha Allah maadaama uu raashinkii uu ii diyaar yahay. marka bataatiga ujeedin saan aan soo koriyo qudaartan ka wadaa waxaa choice u leedahay inaad sabaayad u karsatid oo ku cuntid haddii kale inaad bariis karsatid oo ku cuntid haddaa ceesh rabtid haddaa muufo rabtid haddaad soor rabtid yacni sidii markaas adiga aad rabtid aa u samaysan kartaa aa wax ku cuni kartaa. waxa waaye maraq yaroo macaan badan waaye oo intaasoo qudaar aan isku daray waaye dhacaankii oo chickenka hoos guduhu hoos u sii yacni aan kor saaray hoos u sii dhaafay caraftaaba la siisan karinba maasha Allah. chickenkina waa ii karay maraqina waa ii karay. marka haddaa rabtid maraqaas hadda mujada aan bataatiga inta aan ku shubay maraqaas baaqul yar oo ku shuban kartaa waxaa ku cuni kartaa sida aan ku idin sheegay oo kale sabaayadii iyo waxaas iyo bariiska xataa waa ku darsan kartaa okay waay. marka waxaa idin tusayaa le walaalahayga inta noocaa ku samaysan kartaan bataatigan iyo qudaartan hadda aan soo diyaariyey. marka saxankan aan soo saartay haddii aad rabtid saxankan aan saaran kartaa aan ka wadaa chickenkaaga soo qaadanaysaa maasha Allah oo si fiican u karay
waxaa ka saaraysaa bataatiga korkiisa saaraysaa 3 xabo haddii aa ka badan rabtidna saxan kan mid ka weyn aa raadsanaysaa meesha yacni si qurux badan aa ugu rasaynaysaa marka walaalahayga waa kana ujeedaan si qurux badnaaday chickenkii aan ugu soo talagalay qadadeeda maanta guriga maasha Allah carafta la siisan karinbo laba xabaaji leenu ku daray maasha Allah waa kana wixii dhan waa soo wada diyaariyay marka waxaan hadda idin tusayaa sida aan liintii iyo wixii aan soo jarjartay geesahan ka soo saaray waa ka ujeedaan hadaa rabtaan waxa ku darsan kartaan wax allaale wixii idinka aad jeceshiin aad rabtiin inaad saartiin oo ku qurxisiin oo kuna saaran kartaan wax walba markaan maadaama ilmeyga ay ku cunayno ukun iyo waxaasiyo oo yaanyadan ay jecel yihiin marka waxay ayaga jecel yihiin aan u saaray si ayagana ay happy u noqdaan markay cunayaan marka waa kana waa soo diyaariyay walaalahayga hadaa rabtaan waa ku darsan kartaan waxa rabtiin hadii kale lisaan u sameeysan kartaan wallahi ma sha Allah hadaa cuntiinaba ka sii daranba quruxda hadda saxanka waxa ka daranba markaa cuntaan waxa waaye caraftaaba la siisan karin aan ku dhahay ma sha Allah ku soo baxay ma sha Allah marka waxaan u maleynaa idinkan inuu easy idin yahay walaalahayga bataatigiina waa soo kariyay qudaartii waa aragteen chickenkii kulli hal mar isla soo wada kariyay hal mar aan soo bixi wixii dhan waa ka saxankii aan soo wada saaray kulli diyaar waaye marka wixii markaas aad ku cun lahayd leed u si diyaarsanaysaa ma sha Allah laakiin chickenkii iyo bataatigii iyo wixii dhan waa ka soo diyaariyay walaalahayga aad iyo aad u mahadsantihiin please ha iloobina subscribe ka share ka like insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.